Number 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ummadda islaamka meel kasta ee adduunyada daafaheeda ka joogta waan idin salaamayaa, khaasatan dadka Soomaaliyeed oon isluuqad fahmayno. mar labaad waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. taqabbal allahu wa minna wa minkum saalix al-acmaal. ilaahay subxaanahu wa tacaala bisha barakaysan acmaasheeda kuwa ilaahay ka aqbalo allah inaga dhigo. asxaabtayda qaaliga maanta wax yar baan rabaa inaan ila wadaago. dadka qaar waxa laga yaabaa inay ku qoslaan, laakiin qosol ma aha. waa wax la iibsado suuqa yaalaan alaabtani, laakiin dadka meelaha qaar jooga waxa laga yaabaa Afrika oo kale meelaha qaar waaye, Afrika xataa ma wada dhan inaynan helin. marka asxaabtayda halkan waxaan ku haystaa waraaqo cadcad. iskuul ma idin baraysaa talo waa maya, waxbay rabtaa inay insha Allah yaroo kooban oo aad ka faa'iidaysataan inay tusto. halkan waxaan ku haystaa alamiyo, sorry asxaabta qaaliga kamarda meel qaldan aan idinku hayay. halkan waxaan ku haystaa alamiyo, halkana waxaan ku haystaa 10 xabo waraaqado cadcad. halkana waxaan ku haystaa warqadda cuntada ofinka loo dhigo. asxaabtayda qaaliga bitabti waraaqaha waxaan rabaa inaan u soo duubo. qof walba uu yaqaano Soomaaliya ka yimaado dukaamada dabakayooyinka qaabkii loo duubi jiray sonkorta Soomaalidan aqoonin. bitabti kuwii baan insha Allah u soo duubayaa insha Allah asxaabtayda qaaliga. marka insha Allah ila socdo kamarada waan yara daminayaa. marka insha Allah waan soo duubayaa laana waa wax aan macaariif calashaan oo la wada yaqaano isla naqaano, laakiin qaabkan u kala korkoreysiinaya kaliya inta soo insha Allah asxaabta qaaliga marka ila socdo. ma sha Allah saxaabay, warqadda cuntada hadda jarjaraya. warqadda cuntada ballaaran waxaad ka dhigaysaa 4 xabad isugu laabaysaa. warqadda markay saas marka hore u ballaarnayd hal mar baad san isugu soo laabaysaa. hal mar marka san isugu soo laabto dhexdaadana ku dhifanaysaa, mar labaad baad san u laabaysaa. ma sha Allah ka bacdi maqaska lagu jarayaa. marka ila socdo. ma sha Allah saxaabay, hawsha sanad ku soo dhameeyay. waa kan warqadii cadayd oo hoose iyo alamiyugan soo dhex galiyay. ma sha Allah, sorry waa kuwaas way isku dhex jiraan labadooda. marka haddana waxaan sii dhex gelinayaa kan aan haddana dhex gelinayaa asxaabta qaaliga ah. kanaad qabanaysaa sanad dhag ugu dhex siinaysaa. ma sha Allah asxaabta qaaliga. marka haddana waxaan sameynayaa afka dhan ayaan usoo wada laabayaa insha Allah. wixii kale kor sameyn lahaana waan idin tusayaa asxaabta qaaliga ah. marka alaabtan aan ka rabo alaabtan matalan inay Soomaaliya oo taala iyo in kale wallahi Allahu a'lam ma ogaan kari, laakiin qofkan haysan waxaan rabaa inaan hawl fudaydiyo ka faa'iideysto. wuxuuna isdin Allah waad sameyn lahayd macmacaan laga sameyn karaa, wax dhanaana laga sameyn karaa, wax leeyahay waxa tabtid. marka sidan ay u samaysan tahay marka horeba qalinkan weeyaan alaabtu sidan ay u samaysan tahay. ma sha Allah aniga ima taalo hadda ka horaan waqti horaan soo gaday mar ka bacdina say meelahaas kolba mid ugu dulduuli jirtay way iga wada dhumeen, laakiin insha Allah waan soo gadaya haddana mar kale. marka asxaabtayda qaaliga alamiyuga warqadda marka hore sameynaysaa, alamiyuga haddana ku sii dhex duubaysaa, ka bacdina warqadda cuntada loogu talagalay. marka insha Allah afkan haddana ka wada duubaya aan isla socono. ma sha Allah saxaabay, halkan waxaan inoogu hayaa laano alaabtan wixii aan ku duubi lahayn ayaa la iska rabaa. marka insha Allah halkan waxaan ku haystaa 2 qaado caaniida ah, fixisa yar 2 xabo ukun ah. shubradii shiidnida borotiinkana ka sameynayay ayaa wax yar lagu darayaa iyadana. ma sha Allah saxaabta qaaliga ah. waxaan kale oo ku darayaa mishaari baan shiitay halkan mishiinka. mishaaridi waan shiiday, marka mishaaridan haddana ku darayaa asxaabta qaaliga ah. ma sha Allah saxaabay, markaas mishaaridi u wada shiitay hadda waan qasayaa insha Allah. marka saxaabta mar raba inaad igu caajistaan gacantan si fiican la galayaan raba inaan si fiican ugu soo xasho. wax baro kale kuma daraayo alaabta. waxaan rabaa inaan dhex geliyo malay iyo cadis. marka insha Allah si fiican aan u soo wada qasaya insha Allah marka ila socdo. ma sha Allah markaan soo fidiyay hadda waxaan soo qaatay sakiintan yar ka bacdina waan jarjarayaa. waxaan jarjarayaa qaab dhaadheer ah. intaas qonaha waan iska furaya darafkaas. marka saxaabta qaaliga hadday wax yarayna wuxuu waa mishaari iyo wax iska wada neutraal
hadday kuu yaraa fidsami weyso ama say kaa reertay inay gacantaada soo raacayso wax yar burka kale caadiga waad ku adkaysan kartaa wax yar oo been oo badnayn in marka ila socdo bismillah asxaabta qaaliga waxaan soo qabsaday hadda warqadii aan soo duuduubay markaan burkii fidsaday marka wax yar oo been oo saliid ah ayaan saas u dhahayaa warqada korkeeda asxaabtayda qaaliga ah ka bacdina waxaan soo qabanayaa burka asxaabta qaaliga ah waxaan ka bilaabayaa halkan kuma ka bilaabi karo hoos baan ka bilaabayaa marka saas u soo soconayaa asxaabta qaaliga ah anaba kor wax ka bilaabayaan sarkaybo yaab kaas marka hadduu halkaa kaaga go-o maxaad samaynaysaa ma kasii hadhaysid waxaad soo qabanaysaa xabadda kale bartii ayaad kasii bilaabaysaa asxaabta qaaliga ah inaan burka calaashan xooga intaas ka dheereeyay ahayd laakiin dhib ma lihin sidaasaan u rabaa marka asxaabta qaaliga ah meesha dambena inay saas ahaataa la rabaa saas u dhuubnaato marka asxaabtayda qaaliga sanaan kusoo wada dhamaystirayaa birtaydaan soo diyaarsadan hadda saaranayaa marka insha allah ila socda asxaabta qaaliga masha allah asxaabta qaaliga saasaan kusoo dhamaystiray marka hadda ukun ayaan marinayaa korka ka marinayaa asxaabta qaaliga ukun ayaa si kal iyo laaba loogu wada qabaynayaa masha allah bilow ilaa dhammaad dhinac kasta ma rabo inaad igu caajistaan asxaabtayda qaaliga haddaad igu caajisteenna ka raalli ahaada asxaabtayda qaaliga anigu ma jeclina wax ku caajiso naftaada kala laga soo qaadaa laakiin intaas waxaan isleeyahay aniguna walaalaha wax u faa'iidee talba aska anigana intaas waaban isxaydayaabo ma fahanteen marka raalli ahaada asxaabtayda qaaliga ah waxaan ka dhigay waan saasan u kala jeediyey asxaabta qaaliga hadda marta si fiican idinku qabtaa marka laano hadda iska daba jijeedso waxa laga yaabaa inay soo gaaraan laakiin sana waan u jeclaysan inaan u kala jeediyo asxaabta qaaliga ah ma garateen waxaan leenahay marxab yaa rabadaan wayaa marxaba bika yaa rabadaan dadka xataa wax yar baa loo shidaan waxba uma shido caanaley baan iska ahay iska raalli ahaada asxaabtayda qaaliga sidan markaan hadda ugu dhamaystiro waxaan ku kor daadinayaa flaxseed iyo jayseed ayaan waxyar ku kor daadinayaa insha allah degdeg dartiis dadkan kugu caajisa darteed aan warqadii kale xataa aan ugu wasakheeyay marka hadda jayseedkii baan soo qaaday wax yar sidaas ayaan ugu kor daadinayaa inaad arkaysaan ayaan malaynaya insha allah asxaabta qaaliga marka qaybta kalena waxaan ku shubayaa falaysirka gacanta ii geli weysakan wax yar marka asxaabtayda qaaliga saasaan rabaa inuu kusoo khamiiro insha allah oo finkaan gelin markuu soo khamiiro waan isla soconaynaa siduu kusoo baxa masha allah saxaabey hadda waxaan dhex gelinayaa alaabtii waxaan dhex gelinayaa malaygan iyo cadiskan ayaan rabaa inaan dhex geliyo asxaabta qaaliga cadiska anigu kanaan u aqaanaa asxaabta qaaliga waan idin sheegayay misirtuna waa tan halkan aan kusoo daadiyay bacdan ay ku jirtaa wayna ka yar tahay tan misirta waa jaalo labadoodu wada jaalo laakiin kan waa ka waaweyn yahay asxaabta qaaliga for example hadda hal xabaan halka ku dhex daray waa kaas ku shaqa ma aha bacdiisuna waa tan asxaabta qaaliga magaciisu waa kaas ma sha Allah marka asxaabtayda qaaliga kanna waa misirtii waa labadoodu waa wada jaalo laakiin kan uu ka waaweyn yahay asxaabta qaaliga hadan si fiican idinku dhaweeyo waad u jeedaan misirtuna waa waxa yar yar oo khafiif ka balbalada muddo waa tii jaalaha ahayd iyadoo guduuda jirto iyadoo madow jirto oo ogtihiin ma sha Allah asxaabta qaaliga
marka hadda kanaan rabaa inaan isku soo labadana rabaa inaan isku soo shiilo marka hore kanaan rabaa inaan bisleeyo kabacdina kanaan gadaal uga darayaa malayga marka insha Allah saxaabta qaaliga ila socdo basasha aan cad ku dalaacay ayaa ii guduudanaysa masha Allah ما شاء الله صحابي هذا waxaan ku soo daray yahay shiishidkii iyo cadiskii aan hal mar ku wada daray marka insha Allah markuu wax yar ii karsamo hadana malaygan ku daraya marka insha Allah ina socdo asxaabta qaaliga insha Allah صحابي halkaas soo damaraya cadiska xaalkiisu biyo soo qasan rabaa marka hadda waxaan ku darayaa qudaartan talaagada ayaan wax yar ku darayaa ma sha Allah marka asxaabteeda waxay ka dhigaysaa iyadana waa wax wada natural ah sorry dib ku soo dhahay kamarada marka saxaabteeda qaaliga wuxuu habeen la afirayo alashaan habeenimo waaye hadii lagu seexdo cunto saliid leh iyo bur xaalka hawada ka baxaya marka burka iyo healthiga waa in la isdhex gasho la isdhex wado ma sha Allah marka hadda waxaan rabaa qudaarta markay biyuhu ka yara buraan baan iska jajabo siin marka hadda intay biyuhu iga baxayaan suugayaa asxaabta ila socdo ma sha Allah saxaabay alaabtii way ka soo baxday kana uu soo bislaaday kana uu bislaaday ma sha Allah saxaabta qaaliga marka hadda alaabtan waa kan muluq waaye intaad rabto haysan kartaa waa kaas weelkii ma sha Allah macmacaan baa laga suubin karaa waxaad ka suubsan kartaa ay sheegsadan oo kale marka asxaabta qaaliga mid iyo laba hadaan idin tuso sanad ugu guraysaa ma sha Allah wax saas u sii weyn ma aha ma sha Allah asxaabta qaaliga hawshu waa kaas marka ha socoto weeyaan ما شاء الله صحابتي قالي إن شاء الله وحن رجيني إذا العجبية مركز سداسن كسر لما يستريا إلى الصعدة صحابتي قالي ما شاء الله صحابي هوشي ساسي كسر لما تي بعد تعب كل شيء وطاس علابتي لو دوبينا وطاس ما شاء الله الله بصدح جير أفر جير انت تربطها يسنكرتها إن شاء الله أيضا مع معاني ذين كسروا بينا هدو إلى هاي رهضاء سيدة أما جلاته أو كله وحيابك لو مع معانا إن شاء الله هديكم من تيجي نبطه خاص oo farxadiina badato qosolkeeda la cadays ka soo badsanana waa soo badinaadeer waa soo daadana ma fahanteen laakiin dad fartan yar aad ilaalisaan xogay caajis ay galay soo ma saxabta qaaliga ah intaasna waa kaftan ma sha Allah marka hawshani waa taas halkaas ay ku soo dhamaatay insha Allah waxaan rajeynayaa bil idmillahi baari inay cajabiso insha Allah marka waxaan ilaahay Ramadaan Kariim kullu caam wa antum bi khayr kullu sana wa antum tayyibin insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.